munaasabad ku saabsan furitaanka sanad dugsiyeedka 2020 ee Amana Boarding and Day School ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay xarunta dugsigaasi waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Soomaaliland maamulka iyo macallimiinta iskuulka Amana waalidiin iyo arday ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Mustafa Cabdi Daahir maamulaha qaybta boardingka ee dugsiga Amana oo waalidiinta ugu bishaareeyay in dugsiga lagu soo kordhiyay qaybta barashada diiniga waxa xilli naga saaray hadaynu nahay laba dalif oo waalidiina dalifka macallimiinta iyo dalifka waalidka labadeedna waxaan isku nahay hal kaliya oo hal waalid bayna waxa waajibi naga saaray ilmahaas inaynu u fikirno qaabka ugu wanaagsan ee ugu caafimaadka qabta ee uu u balan lahaa diin iyo maadiba ardayga waa la qadaysiinaya iskuulka ayuu qadada ku leeyahay marka uu qadeeyo kadibna salaadii duhur ayuu tukanaya salaada duhur markuu saa u tukado wuxuu gelayaa madrasadii quraanka waxa uu soo gelaya macallimiintiisa galaas kasta ama macallin kasta waxaan u dhiibaynaa 20 arday oo kaliya Abdullahi Xasan oo ah maamulaha Amana Boarding and Day School oo munaasabadani ka hadlay ayaa sheegay inay kordhiyeen tayada waxbarasho iyo badqabka caafimaad ee ardayda maadaama oo wali dunida ka jiro xanuunka COVID-19 mudadii imika COVID-19 ku jiray waxaan helnay waqti badan oo aan wax badan ku raadino oo aan wax badan daraasad badan ku sameeyno waxa ka mid ah in aan booqanay madrasadihii ugu fiicnaa magaalada waxa aan soo hadlay macallinka mushaarka la siiyo ugu fiican waxaan soo hadlay ardayda tirada ugu yar ee macallinku awoodi karo xifdiga quraanka waxaan soo hadlay maamulayaasha ugu fiican ee ka aflaxay ama madrasadaha caanka maanta ee la yaqaano soo maamulay waxa laga ka fikirnay war miyaan ardaygan hal mar wixii soo dhamaystirka kasta oo waalidka la hadla ee dhaar buuga la daris iyo ardayga daalan miyaan hal mar quraanka dhamaystir karin homework ku dhamaystir karin ardayga guriga markuu tago haysta sax inaan ardaygii nadaafadiisii ka shaqayno galaaskii 2 jeer maalin buufino ardaygii 2 jeer xumadii eegno falaxalkii siino sanatayskii siino afkii siino ayaa loo keenay online-kii qodada dhiga boardingka macallimiinta dhan baa soo noqda iyaga online way heli doonaan oo kombiyuutarada ay ku helayaan macallimiintiina markay soo noqdaan habeenkii 7 ilaa 9 waxay u muraajacayaan wixii maanta loo soo dhigayo iyagu waa boarding oo deeba boarding waa ka gaar qolada dhiga waxaad heli doontaa muraajaco ah wixii maanta loo dhigay ardayga oo online waxaan ugu talinayaa cidii awoodi karta muraayadan internetka ku shaqaysa oo guriga ku xidho markaad muraayada ku xidho casharadii baa soo gelaya 6 ilaa 7 iyo barka macallimiintu halkan ay gelayaan habeenkii waxay ku sii daynayaan muraajaco galaas walba oo lacag la'aan suxufi Axmed Cabdiraxmaan Xuseen Hello oo ku hadlayay afka waalidiinta ayaa ka marakacay tayada waxbarasho ee dugsiga Amana runtii aad iyo aad bay mahadsan yihiin mas'uuliyiinta dugsiga Amana Boarding and Day School oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo heerka fiican ee ka jira waxbarashada iyo halka ay soo gaarsiiyeen ardayda runtii waan ku ammaanayaa maadaama waalid aad ugu xidhan iskuulka lana socdo heerarka kala duwan ee ay marayso ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiqaadir Cabdilaahi iyo Yuusuf Xuseen oo ka mid ah mas'uuliyiinta waxbarashada Soomaaliland marka hore Amana halkii fasal waxa dhigan jiray 20 arday marka taasi waxay u sahlaysaa in masaafadii la doonayay ay ardaydu isku jiraan waa qodobka labaad ee
in subax kasta la eego heerkulka xumada ee maxaan ku dhahay dhammaan shaqaalaha iyo ardaydu markay goobta waxbarashada soo galayaan inay maxaan ku dhahay la eego in iskuulku u diyaarsan yahay waxaan filayaa intayna halkan fadhida waxa weeyaan madaxda wasaaradda iyo waalidiinta dhammaanteen layna soo saaray mishiinkii yaraaye maxaan ku dhahay heerkulka xumada inaynu diinteedii barano ku dhaqankeedii iyo in dee tartanka uu bilaabmo madaariska laftigoodii la odhan jiray marka qur-aan la xifdiyay madaariska ilmaha gee in goobihii waxbarashada la idhaahdo iskuul heblaaya qur-aanka xifdiga kaga wanaagsan halkay ka ahayd madarisa heblaaya qur-aanka xifdiga ku wanaagsan marka aad iyo aad baa fikirkaa soo dhaweeyey mukhtaar mursal xiin Home Cable TV Hargeysa.